ciidanka booliiska waxaan leenahay ha loo tiro dadweynaha isaga qiraala ana geystay buu leeyahay markaatu ma baahna mar kale ma baahna soo ku dhaqsaha badan leh hawsha la fuliyaan leenahay maanta intayna soo gaadhay wax walba way naga culus tahay halkani oo ah bartamaha magaalada Boorama waxa maanta shir jaraa'id ku qabtay badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama kuwaasi oo ka hadlay mudaharaadyo ilaa saaka ka socday gudaha magaalada Boorama waxayna fariimo kala duwan u direen laamaha amniga iyo bulshada magaalada Boorama ee mudaharaadyada dhigaya halkan waxaan ku joognaa 7 xildhibaan oo doonaya inay wax ka dhacdaan xaaladii maanta ka dhacday magaalada Boorama ee mudaharaadkii runtii aad iyo aad baan uga xunnahay magaaladii la noo doortay aan ku dhalanay in shaqaaqa noocan ay ka dhacdo aad iyo aad baan uga xunnahay cid kastoo dhibaato ka soo gaadhana waxaan leenahay waan ka tacsiyadeynaa runtii haddaan xildhibaano nahay magaalada in wax la soo gaadhsiiyo ma ogolin dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan cidda magaaladu ay ka dumaysay waa innaka cidda wax hadday dhaawacmay ka dhaawacmayaan waa innaka cidda mar walba rabshadu ay soo gaadhayso waa innaka magaaladan innaka hal dadweynaha cidina la leeyma jirto istajiya dadweynaha istajiyaan leenahay ciidanka booliiska waxaan leenahay ha loo tiro dadweynaha awalba tuli jirteen dadweynuhu waa shicibkeennii hadday gadoodeen inaan u tirno waa inagu waajib ciidankan waxaan ka codsanay in dadweynaha u tiraan runtii waxaan dareemayaa inay roolkii maamulka degmadu uu aad u liito maamulka degmadu waxaan leeyahay kaalintiinii dejinta dadka qayb qaata ummadda soo dhex gala dadku wayna doorteen amniga inigaa ka mas'uula sida aan maanta u dhex joogno ummadda u soo dhex gala oo maanta ay ka dhacday degmada Boorama shaqaaqo amni darra oo runtii dadka Boorama iyo deegaanka ku nooli ay maanta gadoodeen oo arrintii ah in waxa weeyaan dilkii ka dhacay Lowyacado sabab u yahay waxaan leenahay horta waa midda koowaad arrintii aad ka hadlayseen ee aad maanta arrinta uga kacayseen dhamaad bay taagan tahay arrintii wiilkii ama dhibta geystay dilkii xukun baa lagu riday maxkamadii labaad iyo tii koowaad ba xukun bay ku rideen marka waxaan leenahay xukuumaddu ha u dhaqsato oo bulshada ballantii hore looga qaaday hore ha loo fuliyo ee culimada iyo waxgaradka gobolka Awdal hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay bay hore ugu sheegeen inay hawshii dhaqan gasho baan horta soo jeedinaynaa ka golaha deegaan ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba marka labaad degmada Boorama iyo dadkeeda waxaan leenahay walaalayaal waxaynu wax ku helaynaa oo aynu wanaaggeena iyo horumarkeena ku jiraa inaynu nabadgelyada ilaashano maanta intayna soo gaadhay wax walba way naga culus tahay in dambe oo dhacdaana culayska inay sii siyaadiso mooyaan cid faa'iido ka helaysa ma jirto dhammaan waxaan leenahay dadka ku nool degmada Boorama iyo cidda gacmaha kula jirta aan ognahay horeyna u sheegnay inay shaqaaqada iyo dhibaatada ay dadka ka wadaan ay faraha kala baxaan ciidamada ammaanka iyo dadka iyo xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa inay shaqadooda si wanaagsan oo dawladnimo u qabsadaan inay shaqadooda sida ummadda inay ugu adeegayeen ay ugu dhaarteen inay ugu qabsadaan ciidamada ammaankana waxaan leenahay tulaala ayaa la idinka baahan yahay waxa la idinka baahan yahay dadkani waa dadkiinii inaad maaraysaan baa la idinka baahan yahay la idinkama baahna inaad xabad ugu jawaabtaan aad laysaan iyo kalaftooda waxaan leenahay intaasaan leenahay degmadu waa degmadayadii waa tiina loo soo doortay lixjecladeeda cid maanta annaga nooga lixjeclo badan oo dhibtaana soo gaadhay culays iyo dib u dhac ay nagu saayidiso mooyaane waxay noo keenaysaa ma jirto baaq u marka ka diraynaa laba dhinac ma baaq u diray anigu waxaan leeyahay anoo golihii deegaanka ee degmada mas'uuliyaddeeda lahaaya waxaan baaq halkan baaq uga dirayaa shacbi weynaha ku nool degmada Boorama waa degmada Boorama ma aha magaalada Boorama waliba degmada ma aha magaalada Boorama waxaan leeyahay magaaladani dhagaxaynu la dhacayno aynu taayirada ku gubayna waa magaaladeeni waa guryaheeni waa awlaadeeni yaanan dhaqanka noocaas mar dambe loo noqon waxa weey wixii halka ka dhacay waynu ogeyn ninkii waa la shalay waa la xukumay ma hawshiisina waa dhamaad baa laynagu yiri waan sugaynaa maanta iyo bari iyo saan dambe mid ka dhacda baan sugaynaa hawshiina waxa aynu ka degdegnaana ma yaalo dadka war xumato shirka dadka wax ku dhex tuurayna waxa leeyahay war ilaahay ka baqo dadka maatada ee wax ma gartaa kicinin Allah fara badan baa ku dhex jiro waan dareemaynaa say wax u socdaan waxaan leeyahay ciidankana dadka u turaan
يا ضدك وحوي مسؤولين بانون هاي ضدك وحي دونان بين وكأني كجاري يجي لتشيله لتجيبيه موقتي دقح بان نقول دعية وحكي نقول دعية هذا وان دول قادنا هذا هو مسؤوليتك فريس وحنا له مركز ضدك عيدا كنا ودبرية ضدك سيد جاه الله الله ومسؤولية كل جرتو أو ترى كل جرو يعني هاي حكومة دنا حنا هاي دي أهرين تاني إنتينا هالكلامات هاي جوكتين نقصي دافين ninkiiba qiraal buu yahay maxkamaddii baa shalay sheegtay in degdeg loo raaciyo maxaa loo haystaa oo waxaba keenaya oo amni darro inagu keenayaba ninkii isaga qiraala anaa geystay buu leeyahay markhaati uma baahna mara kale uma baahna soo ku dhaqsaha badan leh hawshaa lagu fuliyaan leenahay ciddii wixii intaa ka dambeeya hawlaha soo farageysa ama amni darro magaalada ka keentana mas-uuliyaddeeda qaadaysa waan ognahay shalay oo ugu dambeysay baan ka garnaqayay waalidiin awlaaddoodii xidhan tahay وعبد الله طاهر وعستيفيك عالمية صاب مقالة بورما